gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada iyo wacyigelinta maamulka gobolka Banaadir Cabdicasiis Cusmaan Maxamed ayaa xarunta aqalka dowladda hoose kula kulmay madax ka socotay hay'adda UNICEF. madaxdaani ka socotay hay'adda UNICEF ayuu sheegay gudoomiye ku-xigeenka inay booqdeen isbitaalka Daylile ee magaalada Muqdisho oo howlo shaqo ay ka hayaan. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. maanta waxaa farxad inoo ahayd inaan xafiiskan ku qaabilno hay'adda UNICEF oo hogaaminayay South Centralka gabadha haysato oo jili intiisan xafiiska hor imaaninna waxay booqdeen isbitaalka gobolka Banaadir ku yaala degmada Daynile halkaas oo ku soo dhaweeyay agaasimaha caafimaadka gobolka Banaadir iyo tiimkiisa meeshaas oo ka socotay shaqo baaxad weyn shaqooyinkaas oo gacanta ay ku hayso maamulka gobolka Banaadir iyo UNICEF oo ka wada shaqeeyaan waxaa ka mid ah nafaqeynta carruurta, daaweynta hooyada dhallaanka, nadaafadda, hygiene-ka, sektaradaas ay booqasho ku sameeyeen adeegyada UNICEF maamulka gobolka Banaadir si kaashtaan laga bixiyo isbitaalka. waxayna soo mareen xarumaha barakacayaasha ee ku nool degmada Daynile si maadaama sanadka uu dhammaad yahay mashaariicda hore u socotay ee dhammaad yihiin waxaan ka wada hadalnay xafiiska markii kadib waxaan ugu soo booqdeen xafiiska kulan ayaa yeelanay kulankaasna wuxuu ku saabsanaa wada shaqeynta labada xafiis ee gobolka Banaadir iyo UNICEF ay ugu muhiimsan tahay mashaariicda UNICEF ee maamulka gobolka Banaadir ee heshiiska ay kula jirto oo dhammaad ah maadaama sanadku dhamaanayo wixii u qabsoomay waxaan u qabsoomin wixii qabsoomena sidii isku update gareeyay wixii aan qabsoon wixii u qabsoomi waayeen meesha iska wareystay update la isku siiyay inta kadib sanadka soo socda mashaariicda soo socda si loogu shaqeyn lahaa meeshii fan aan u raadin lahayn dowladda maamulka gobolka Banaadir wuxuu contribution oo arrimahaas ka geysan karo maadaama dadkan mas'uuliyadda ay ka saaran tahay deegaanka arrimahaas iyo waxaan ka wada hadlay wada shaqeynta ka dhaxaysa hay'adda UNICEF iyo gobolka Banaadir waxaan rajayn doonaa insha Allah kulan weyn oo hogaaminaya duqa caasimadda iyo hay'adda rabka ugu sareeya UNICEF inaan bishaan dhamaadkeed aan yeelan doono wadahadalaasna dib loo qaadi doono sidii horumar loo gaara iyo guul waara. waxaan rajayn doonaa shacabka caasimadda ku nool in adeegyada guud aan daadejinay ay heli doonaan waqti walba iyo saacad walba sida la socotiin gobolka Banaadir waxaa ka furan xaafad walba ama degmo walba MCA badan xarumo caafimaad xarumo waxbarasho xarumo ku saabsan hygiene-ka iyo deegaanka iyo nadaafadda sida la socotiin duqa magaaladana wuxuu asteeyay campaign nadaafadeed oo subaxla ah oo subax kasta laga sameeyo caasimadda taasi oo markii hore waajib ku ahayd annaga ka maamul ahaan inaan sameyno haddana dadaalkaas inaan laba jabaarnay waxaan ku faraxsannahay adeeg walba oo dadka Muqdisho rabay inaan gaarsiino waajib inuu tahay inaan gaarsiino wixii markaa ka dhiban waxaana inaan qaban doono madal bulshada Soomaaliyeed caasimadda ku nool aan isku keeni doono aan ku wareysan doono waxyaalaha ayaga hortawinta la degmo walba inay soo bandhigi doonto waqti intuusan dhamaanin hay'adaha nagala shaqeyn doono inaan keeni doono kulankaas si caasimadda ay u gaarto horumar waara.